بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 495 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهمه، فقال أدنه، فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا، والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا، والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا، والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا، والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا، والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد والبيهقي والطبراني في المعجم الكبير، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 15 bishii 8 Shacbaan sanadka 1442 isla markaana waafaqsan 28 bishii 3 sanadka 2021. awalan waxaan ka cudur daaranayaa baaqashadii shalay oo sabteed xadiidka naga baaqday. waan mashquulay, wax xanuun iyo wax dhibo kale oo jira male. walaalo badan baa qoraal iyo codba ii soo dhigeen oo dheemiyaad xanuunsatay. maxaa yeelay caalamka corona iyo viruskaas oo argagax badan dadkii ku riday ayaa qofkii wax yar shanqadhiisa la waayaba ama qofkii lala kacay bay dhahayaan iyo dadku u malaynayaan. marka niyo saalixaan u rajaynayaa dadkaas iyo maaragtay khayr badan oo ku tuhmayo aad ila soo xidhiireen iyo qoraallo soo dhigeen. marka anu waan bad qabaa, waan fiicna, wax dhibaato ama mashquul maan darsiga shalay naga baajiyey. aad iyo aad baan idinka cudur daaranayaa, ka raalli ahaada baaqashadaas. intaa kadib, ikhwatii fillahi, waxaanu ku jiray mawduuceeni qiimaha badnaa oo ugu magacdaray tacaamulu nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa siyaasatu alxakiima maca afraadi almujtamaci. nabiga calayhi salaatu wasalaam habdhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii ficneed iyo siyaasadiisii aad u qiimo badnayd xakiimadahayd iyo dadka bulshada kala duwan iyo qaababka oo la dhaqmi jiray iyo mashaakilka u yimaada qaabka sahlan ee maaragtay uu u xallin jiray. maanta waa qiso kaloo cajiiba, waa qisadii 6aad weeye. ciwaan waxaan ooga dhigaynaa qisatu shaabi ama qisatu shaabin dalaba min annabiyi calayhi salaatu wasalaam alidna bizina. waa qisadii ku tacalluqday ninkii dhallinyaradahaa ee nabiga ka codsaday inuu zinada u idmo. yaanu ku magac daranaa qisatu shaabin dalaba min ama qisatu shaabi aladii dalaba min annabiyi alidna bizina. ciwaankaasaanu ka dhigana. waa qiso cajiiba ikhwatii fillah. waxaan jeclaan lahaa qof kaste oo xadiidka uu soo gaaro inuu qisada baldhuuxo. habka nabiga calayhi salaatu wasalaam, ninkan wuxuu nabiga ka codsaday iyo nabiga sida sahlan ee caqliga ah, ee caqliga iyo sharciga labaduba ogol yahay, ee qof kastaba uu aqbalahayo, uu nabigu ku xaliyo. aad iyo aad tusaale aad u macaana oo qof kasta uu fahmi karaa. qisadan waxay ku timid markaan u horeyno sidaanu maraajicda ugu tiirin jiray xadiidka, aanu rabna inaanu usoo madhigno bulshaweynta meelaha iyo cidda soo saartay iyo qaababkiisa saan maaragtay aan u samayn jiray. xadiidka waxaa soo saaray alimaam axmed kitaabkiisa musnadka ah. kadalika waxaa kaloo soo saaray alimaamu dabarani fi mucjam alkabiir. kadalika waxaa soo saaray alimaamu albayhaqi fi shucab aliimaan, iyo kutubo kaleba way soo saareen. xadiidku waa xadiid saxiixa. waxaa xadiidka soo dhoweeyey oo maaragtay isnaadkiisa waa xasanu jayid yidhi imaam xaafid alciraaqi kitaabka ixyaa culuumudiin markuu takhriijinayey. sidoo kale
sheekh albani raxmatullahi caleyh silsila saxiixa waa ku saxiixinaya raqamka xadiidka 370. sidoo kale sheekh muqbil alwaadici raxmatullahi caleyh kitaabkiisa asaxiixu lmusnad mima laysa fi saxiixayn asna wuu ku saxiixinaya raqamka xadiidka 501. idan xadiidku waa xadiid haabit oo saxiixa weeyaan. inta markaanu ka tagno qisadan xadiidka maxay tahay? abu umaama albahili radi allahu tacala canhu wa ardaa saxaabiga jaliilka wuxuu leehay ina fatan wiil shaaban oo dhalinyaraa, idan fatan iyo shaaba marka waa un dhalinyaro wey, wiil dhalinyaraa ayaa ataa u yimid annabiya sala allahu alayh wasalam, nabiga ayuu u yimid. faqaala wuxuuna ku yidhi arrin buu wiilkaa watay oo nabiga oola soo kacay, cajiibnimadkeeda iyo wiilka geesinimadkiisa. wuxuu yidhi yaa rasuul allahi, rasuulka ilaahayow iidan li ii idan bizina zina ii idan, isma celin kara aniga marka shahwadii baa iga badatay. waa sida lisaanu xaalkiisa ama maqaal maarata lisaanu xaal ka muuqatay ama uu hadda ku dhawaaqay baad zina ii idan buu yidhi, zinada ani ii fasax. nabiga intuusan jawaab celinin sida dabeecigaha saxaabadii baa dhibsadeenoo ninka ku kaceen. fa aqbala alqawmu, qowmkii baa ku soo jeesadeen ninkii oo soo qaabileen caleyhi korkiisa. fazajaruuhu, arrinkii bay ka nahiyeen oo ka reebeen. wa qaaluu waxayna dheheen mah bay dheheen, maaragtay kuf can haada, bimacnaa utruk can haada, ka tag weeyaan arrinkaas. mah kufa canhu, arrinkaa ka hadh oo jooji, warka aad wadday jooji weeye. faqaala nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam udnuhu buu i, udnuh soo dhowow. meeshii canaan iyo midna nabiga muuse dhihin, udnuhu soo dhowow buu i, ii soo dhowow. fadanaa wiilkii waa dhowaaday minhu nabiga xaggiisa qariiban meel u dhow. qaala markaasa nabigu wuxuu yidhi ama raawigii fajalasa waa fadhiistay wiilki, fajalasa nabigu wuu fadhiistay, nabiga ayaa fadhiistay ama wiilkii baa fadhiistayba. qaala markaasa nabigu wuxuu markuu meel qariiba u yimi usoo dhowaaday, qaala wuxuu yidhi fajalasa waa fadhiistay wiilki. qaala nabiga markaa wuxuu yidhi atuxibuhu, tusaalu u keenay, atuxibuhu ma jeceshahay liummika, hooyadaa ma u jeceshay zinada in laga zinaysto, hooyadaa ma jecesha? qaala wuxuu yidhi laa, wallaahi baan ku dhaartay ee jacalanii allahu, allah iga yeelo fidaa'aka, furashadaada ilaahay subxaanahu wa tacaala naftayda ha kugu furtee, marnaba hooyadii wax faaxishada in lagu sameeye ma jecli buu yidhi. qaala markaasaa nabig wuxuu yidhi walannaasu dadkuna yuxibuunahu may jeclo liummahaatihim, hooyooyinkood inay waxaa lagu sameeyo dadkuna ma jeclo, sidaad hooyada ula jecleen ba iyaguna u jeclayn. qaala haddana nabigu wuxuu yidhi afa tuxibuhu, ma la jeceshahay libnatika, gabadhaada in gabadhaada laga zinaysto oo maarata la xumeeyo ma jeceshahay? qaala wuxuu yidhi laa, wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allahi, rasuulka ilaahayow allaan ku dhaartay, maaragtay ilaahay baan ku dhaartaye ma rabuu yidhi anu arrinkaa, jacalanii allahu fidaaka, ilaahay furashadeeda ha kaa dhiga, ilahay hayuu kaa furta. qaala haddana markaas wuxuu nabigu wuxuu yihi walannaasu dadkuna yuxibuunahu may jeclo libanaatihim, gabdhahooda arrinkaa lama rabaan. adi hooyadaa iyo gabadha dashadaada la rabin, dadkuna saasoo kale weeyaan, gabdhahoodii hooyooyinkood lama rabaan. qaala nabiga haddana wuxuu yidhi afa tuxibuhu, ma jecesha liukhtika, walaashaa arrintaas in lagu sameeyo ma jecesha? qaala wuxuu yidhi laa, wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allahi, jacalanii allahu fidaak. qaala nabigu wuxuu yidhi walannaasu dadkuna yuxibuunahu ma jeclo liakhawaatihim, walaalahood in lagu sameeyo ma jeclo. qaala haddana nabigu wuxuu yidhi afa tuxibuhu licamatika, eedadaa ma la jecesha in lagu sameeyo? qaala wuxuu yidhi laa, wallaahi yaa rasuul allahi, jacalanii allahu fidaak. qaala wuxuu yidhi walannaasu dadkuna yuxibuunahu may jeclo licamaatihim, eedooyinkood in lagu sameeyo may jeclo. qaala nabiga haddana wuxuu yidhi afa tuxibuhu, ma jeceshahay maarata likhaalatik, habaryartaa in lagu sameeyo arrinkaa ma jeceshahay? qaala wiilki wuxuu yidhi laa, wallaahi yaa rasuul allahi, jacalanii allahu fidaaka, ma jecli. qaala nabig wuxuu yidhi walannaasu dadkuna yuxibuunahu may jeclo likhaalaatihim, habaryarahoodu may jeclo in lagu sameeyo. 5 haween buu u sheego maxaarimtiisa. qaala markaasaa nabigu marka raawigi baa wuxuu yidhi abu umaama albahili, fawadaca nabigu waa saaray yadahu gacantiisa caleyhi, korka wiilkii dushiisu saa u saaray. riwaayaadka qaarkood waxay leeyiin laabtuu ka saaray. wa qaala wuxuuna yidhi nabigu allaahumma kfir danbahu wadahhir qalbahu waxasin farjahu, allahuma allahayow ikfir danbahu, allow dembigiisa dhaaf wiilka, wadahhir allow dahir qalbahu, qalbigiisa allow ka nadiifi macaasi iyo xumaan iyo faaxisho, waxasin allow xifdi oo ka ilaali, farjahu farjigiisana allow xumaan iyo faaxisho allow ka ilaali. raawi wuxuu yidhi falam yakun muusa ahanin bacda daalika, intaa kadib alfataa wiilkii yaltafitu mid milicsada ilaa shayn. meelaha qaarkoodna waxaa soo aroortay haweenka ninka ugu fogaan badan buu ahaan jiray oo warkaaba aan lagu soo qaadi jirin. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan runtii waa xadiid cajiiba oo qofka muslimka had iyo jeer inuu ku celceliyo
oo goobaha dadku isugu yimaadaan lagu baraarujiyo ayay aad iyo aad u mudan tahay. waa dawo cilaaj nabawi ah weeye. nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkan dhallinyarada arrintan faaxishada oo kabaa'irta waaweyn ku jirta ayuu oola yimid oo rasuul allah fasax buu yidhi. ummaddii kale qaabkay u waajahday fiiri, dadkii meesha fadhiyey ninkii bay ka hor tageenoo way canaanteen oo way gulguleenoo ka joog bay dhaheen arrinka jooji. nabigu laakiin waxaa qaab ka duwan buu u qaabilay. wiilku wuxuu ku yidhi ii soo dhowow, soo dhowow buu ku yidhi, soo dhowow, soo dhowow, agtayda imow. wiilkii nabigu soo ag fadhiistay. nabiga calayhi salaatu wasalaam canaan muuse canaananin, xageed ka timid muuse dhihin, nin xun baa tahay ma dhihin, waxaan faaxisho weeyaanoo waa kan weeyaan muuse dhihin. waxaasoo dhan baa nabigu xaggaaba lama aadin. tusaale yaroo gaaban oo qof kasta uu fahmi karo ayuu nabigu u soo qabtay. wuxuu nabigu u tiriyey qof kasta oo bini aadam ah waxyaabaha taaban lahaa. 5 haween ee maxaarimtiisa ee ku hareeraysan waa hooyadii, waa gabadhu dhalay, waa walaashii, waa eedadii, waa habaryartii. 5tii ku hareeraysneed oo haween ayuu sheegay. qof kasta ku hareeraysan: hooyada, gabadha dashay, walaasha, eedada, habaryartaa weye. 5 haween oo maxaarimtiisa oo ku hareeraysan weye, oo cid kastaba maarata ku hareeraysan. hooyuu qof kasta leeyahay, qof kasta wax guursaday in carruur dhalay gabadh buu leeyahay, inuu gabadh leeyahay u badan tahay, gabadh ay walaalo yihiin buu leeyahay, eeduu leeyahay, habaryar buu leeyahay. wuxuu ku yidhi nabiga markaa, hooyadaa in faaxishadaa lagu sameeya ma jecesha? wiilka arrinkii waa la amin karay, waa la booday. wuxuu yidhi laa, ilaahay baan ku dhaartaye rabbina naftayda ha kugu furtee, oo wixii adi dhib kugu dhici lahaa naftayda ha ku dhaca weeye. rasuul allahu arrinkaa lama raba aniga, hooyada in lagu sameeyo marnaba ma ogeli. qaala nabigu wuxuu yidhi dadkuna saasoo kale weeyaanoo may jecelo hooyooyinkooda in xumaatada lagu sameeyo. sida adugu aad hooyada oola rabin ayay dadkuna hooyooyinkooda oola rabin. waa ka gudbay nabiga haddana wuxuu yidhi gabadhaad dhashay ka waran ma jecesha in lagu sameeyo? mayuu yidhi. markaasaa nabigu wuxuu yidhi sidaasoo kale dadkuna gabdhahay dhaleen in lagu sameeyo may jeclo. haddana mithaal saddexaad buu u keenay, walaashaa in lagu sameeyo ma jeceshay faaxishadaas? maya weeye. mar kastana wuxuu dhahaya laa wallaahi yaa rasuulallahi jacalanii allahu fidaaku isdaba dhigay. taakiid weeye, arrintaasay agtiisa aad ooga fogta. markaasaa nabigu wuxuu yidhi fakadalika dadkuna gabdhahay walaalahayiin in lagu sameeyo may jeclo. haddana mithaal afraad buu u gudbay, eedadaa in lagu sameeyo faaxishada ma jeceshahay? sidoo kaleu wiilka haddana yidhi maya. nabigu wuxuu ku yidhi haddana sidaasoo kale dadkuna eedooyinkooda in lagu sameeyo may jeclo. markaasaa nabigu haddana wuxuu yidhi habaryartaa in lagu sameeya ma jeceshahay? waa maya wey, mayuu yidhi. haddana nabigu markaas wuxuu yidhi walanaasu maartay walannaasu yuxibuunahu likhaalaatim, dadkuna habaryarahood in lagu sameeyo may jeclo. 5tii maxaarimtiisaeed markuu saa ugu sheegay, 5tiina mid kastaba uu yidhi marnaba ma ogeli, ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa intuuqa wiilka dusha saa oga saaray. riwaayadaha qaarkoodna laabtu ka saara bay dhahan. wuu u duceeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam. meeshii kuwii kale ay canaanteen ay ku qayliyeen wuu u duceeyey oo wuxuu yidhi allaahuma allahayow allow dembigiisa dhaaf, dembigiisa allow u dhaaf, qalbigiisana ilaahu dahir, xumaan iyo faaxisho iyo wixii ku jiroo dhan ilaahu qalbigiisa ka ilaaliyo ka dahir, farjigiisa iyo xubintiisa tarankaana allow xifdi oo xaaraam ka ilaali buu nabiga calayhi salaatu wasalaam. saxaabigi baa wuxuu leeyahay intaa kadib wiilkaas ma milicsan jirin wax ku saabsan howlahaas. riwaayaadka qaarkoodna haween ninka ugu fogaan badan buu ahaan jirayba. idan ikhwatii filaahi, halkaas darsi cajiiba oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa meesha ku jira oo ka faa'iidaysan. mucaamalaadka nabiga iyo habdhaqankiisa qiimaha badan, xikmadda siyaasadiisa xakiimada iyo wiilka si uu u qanciyey. hadduu markii aayado qur'aan iyo howlaha haddii loo soo daliiliyo waxaa laga yaabaa inuu qofkii ku qancinba, laakiin tusaalahan dhow ee cajiibka qof kasta fahmayo. hooyada, gabadhaa dashay, walaasha, eedada, habaryarta ma la jeceshahay? waa maya. dadkuna adoo kale wey, saada u jeclayn qaraabada in xumaan lagu sameeyo, fakadalika dadkuna ma jeclo inay qaraabadood xumaan lagu sameeyo, ma jeclo. idan waa tusaale cajiiba wey. waxaan rabaa inaan halkan usoo gudbiyo qof kasta oo ama ha weynaado ama ha yaraado oo rag ah,
sida aada u jecleen maxaaribtaada iyo qaraabadaada in faaxisho iyo xumaan lagula dhaqmo fakadaalika dadkanu waa adigoo kale wey ma jeclo arrintaa hadduu qof kasta fahmi lahaa wax xumaan sameeyaaba lama arkeenba ikhwati fillah xaqiiqatan xumaan wax sameeyaaba lama arkeen nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu isoo xusiyey xadiidkiisa u yidhi waati ila annaasi bimaa tuxibu an yu'taa ilayk dadka waxaad oola tagtaa oola dhaqantaa wax kastoo jecesha in lagula dhaqmo oo wanaaga adigana dadka kula dhaqan mafhuumulmukhaalafa wax kastooda ogolayn in lagula dhaqmo xumaana adigana dadka ha kula dhaqmin wey dadku waa adoo kale wey saad waxa oga danqanaysa iyagana oga danqanhayaan idan dulmi iyo xadgudub adi ma rabti faaxish iyo xumaan ehelkaada in lagu sameeye ma rabti in adiga lagu dhibaateeye ma rabti fakadalika dadkuna saasoo kale wey ha dhibaatayn ha dulmiin xumaanna ehelkooda ha ku samayni wey cid kasta haddii arrinkaa ogaan lahaayeen sida asagaba uusa u ogolayn inay dhibaato loo geysto inay dadkaa kalena ayna ogolayn in dhibaato loo geysto hadduu cid kasta ay fahmi lahaayeen wax dhibaato ma timaadeenba adduunku caalamku wuxuu noqon lahaa nabadgelyu noqon lahaa cid baa arrintii hadday ogaayeen hataa aana maaragtay aana xisaabta ku darsanayn oo xadgudub iyo dulmi leeban hataa dowlooyinku waa noocaas wey dowlad ogol in lagu duulo la burburiye ma jirto idan haddii mar ayadoo ogolayn in la burburiyo fakadalika iyaduna yayna dowladaha kale burburini wey qabiilada qabiil ogol intii lagu soo duulo maarata la gumaysto oo ina gumayd laga dhigoo la baabi'iyo ma jirto adiga saada u jecla adigana qabiilada kale ha ku duulin shaksi haddaad tahay ama dumar ama rag ahow in lagu dulmiyo oo maaragtay lagu ihaanaysto oo dhibaato laguu geysta ma rabti fakadalika dadka kalena saasoo kale weeyaan ma rabaan ha u dhowaanin waa muhiim wey waxay xusuusinaysaa oo kale qiso waktigii cumar bin khadaab dhacday sanadkeeda hadda ma hubo qudaadii uu qaadiyaasha ka dhigay cali bin abi daalib baa ka mid ahaa bay dheheen oo uu mar qaadi ka dhigay cali bin abi daalib markaa muddo isagoo meesha xafiiska fadhiya wax u yimaado usoo dacwooduu waaye wuu yimid oo cumar buu u yimid oo wuxuu ku yihi cumarow yaa amiira almu'miniin haddii meel baan iska fadhiyaayo wax ii yimaada oo ishaysta oon kala xukuma ma lahu yidhi saan meesha u fadhiistay ee qaadiga iga dhigtay magaalada madiina wax ii yimidba ma lahu yidhi cumar bin khadaab markaa wuxuu yidhi maxaa dhacay markaasa wuxuu yidhi cali bin abi daalib waxaad qaadli iga dhigtay dad naasun carafuu maa lahum wamaa calayhim dad garanhaya waxa xuquuqa ee lagu leeyahay iyo wax xaqa iyagu ay leeyihiin kala yaqaanaad mas-uul yaad iga dhigtay qaadi idan qofka xaqa uu leeyahay hadduu garanhayo xaqa lagu leeyahayna uu garanhayo labadiiba uu saa iskaga ilaaliyey dad xuquuqda ay leeyihiin iyo xaqa lagu leeyahay kala garanhaya mid kastana meeshuu maarata lahaa marinhaya yaad iga dhigtay buu qaadi idan cid iman ma jirto yidhi maxaa yeele wixii xuquuqa lagu lahaana way gudahayaan wixii xaqee lagu lahaana si tartiibay u doonanhayaan ama wayba cafinhayaanba idan dad kala garanaya xaqay lahaayeen iyo wixii lagu lahaa marka sidaa u garanhaya ayaad mas-uul iiga dhigtay buu yidhi marka cid ii baahanba marka ma lahu yidhi idan dadku hadday garan lahaayeen cid kaste waxa ayadu ayna rabin qofkaa kalena inuusan rabin idan caalamku waxa dulmibaa ma dhaceynba laakiin dad baa arrintaa iska idna tiri ama dowlado ama shucuub ama ashkhaas idan waa arrin khatara wey ikhwati fillah idan tusaalaha cajiibka nabiga wiilka u keenay kadibna kasii cajiibsan ducaydu ugu khatima nabigu u duceeyey wiilkii la yimid yidhi macaasi inaan galaan rabaa ii fasax yidhi zinada nabigu ducuu ugu khatimay ilaahayow dembigiisa dhaaf allow qalbigiisa faaxishada iyo xumaantada ka dahir ilaahu xumintiisa taranka xifdiyo ilaali buu yidhi waa ducaa cajiiba wey waxay xusuusinaysaa qisadii kale ayna sugnaatay bukhaari iyo keyrkii ku sugnaatay ninkii la dhihi jiray dufayl bin camrin addawsi reer yaman iyo reer dows ka yimid oo uwaaskaa nabiga maka ugu yimid sidaa ku islaamay yidhi rasuul allah dows baan gaadhsiinayaa dacwada maaragtay igu ogow kadibna muddo markuu ka maqnaa u yimid ee yidhi reerkii waaye hal qof oo isoo raaca waan waayey reer dows waa i diideen inuu ilaahay eber ka dhigo nabigo habaar buu ku yidhi nabigu muxuu yidhi allaahuma hdi dawsan waati bihim buuri ilaahu reer dows hanuuni ayagoo socdana allow keen buuri bal u fiirso muuse habaarina ilaahu reer dows keen maarata ilaahu reer dows soo hanuuni ayagoo socdaana allow keen buuri marka waxaan u baahannahay khaasatan dacwada iyo cid kastoo dhibaato ku timaada ama arrin mushkila la soo gudmoonaata
qaabku u xallin lahaa si simbal inuu u xalliyaa la rabaa nabiga dulqaadku muujiyey tusaaluhu wiilkan u keenay iyo ducada u khatimay wakaade ducadii ilaahay baa u aqbalay nabi maxamed baa u duceeyey wiilkii wuxuu noqday arrimahaas iyo wuxuu codsanay ninka dadka ugu fogaan badan muu noqday qalbigiisiiba waa laga saaray bal u fiirsaday ikhwati fillah mucaamalo ka fiican ma jirto duca ninkii xumaantada dalbay ayaa loo ducaynaya inuu ilaahay dembigiisa dhaafo qalbigiisa ilaahay daahiro xumintiisa tarankana xumaan ilaahay ka ilaaliyo innaga hadda maanta dhici lahayd qof kaste bal u fiirsada maanta arrintaa hadduu ninkuula iman lahaa oo uu ku yidhahdo anu iskama celin karaba zinada sheekhow arrintaa waama rabaa ani maba dayn karaba ama maarata hala ii fasaxo tusaale ahaan waa un la qariibsan laha waryaa war waa mid habaar qaba waa mid kana baa la dhihi laha si tartiiba waxaa laga yaabaa in badanoo dadka inayna kusoo dhacdeen ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanayna biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tuso nugu nirsaaqa xaqa raacitaankiisa ikhwati filaahi runtii waa qiso cajiiba weeyaan hal mar baan xadiidka akrinhayaa alxadiidu 495 can abi umaamata albahiliyi radi allahu canhu qaal ina fatan shaaban ata nabiya sala allahu alayh wasalam faqaala ya rasuula allahi iidan lii bizina faaqbala alqawmu calayhi fazajaruuhu waqaaluu mahmah faqaala udnuh فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال فتحبه لعمتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال فتحبه لخالتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء رواه أحمد والطبراني والبيهقي والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته